ATMIS oo ka hortagtay weerar uga yimid Al-shabaab. Qaabkii ay uga hortageen sidee bayna ku soo wareen kooxda Al-shabaab. Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa ila soco. Aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ay maanta ciidamada howlgalka ATMIS ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolkaasi. Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ATMIS uga hortagtay weerar gaalmo ah oo ay doonayeen inay ku soo qaadaan xubno ka tirsan kooxda Al-shabaab. Labada dhinac ayaa ku dagaalamay agagaarka magaalada, waxaana ka dhacay dagaal qaraar oo ay guul weyn ka sheegatay ATMIS, kaasi oo sidoo kale khasaare geystay. Afhayeenka ciidamada howlgalka ATMIS LT Kuul Cabdulaahi Xasan Ganaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi, isagoo u shaaciyay inay uga hortageen weeraro abaabulan oo Al-shabaab la damacsaneed ciidamadooda. Kuul Cabdulaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkan ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, isla markaana qayb ka ahaa weerarka gaadmada ah. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay gacanta ku dhigeen 2 qori iyo 130 xabo oo rasaas ah kadib markii ay dagaalka ku jabiyeen xubnaha Al-shabaab. Xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo ka soo horjeeda laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ilaa hadda ka soo baxay kooxda Al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada Midowga Afrika iyo ATMIS. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa kooxdan ay kordhisay weerarada ay ku beegsanayso ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ugu dambeeyay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidanka Uganda ee Buulamareer. Balse ciidamada ATMIS ayaa waxay sheegeen markaasi inay guul ka soo hoyeen dagaalkii abaabulnaa ee soo qaadeen xoogagga Al-shabaab, waxayna sidoo kale sheegeen inay dharbaaxo xooggan ku dhufteen xoogagga Al-shabaab. Ciidamada ATMIS ayaa waxay ballan qaadeen inay sii wadayaan howlgallada ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya ee u baahsanaya cadowga argagixisada, sidoo kalena dhammaan meeshay ku sugan yihiin ka saarayo intii ay ku sugan yihiin gudaha dalka. ATMIS ayaa aad waxaa markaasi ay dagaal la gashay argagixisada oo ugu horeysa Al-shabaab iyo Daesh ee markaasi weeraro foolka foola iyo dagaal aad u qaraar ku dhex maro shabeellooyinka. Balse ATMIS ayaa haatan waxay sheegtay inay guulo waaweyn ka soo hoysay dagaaladii ugu dambeeyay ee la gashay xoogagga Al-shabaab, iyagoo sheegay in markaasi lasoo weeraray balse ay iska caawin xooggan ka sameeyeen, sidoo kalena ay iska dhiciyeen in argagixisadii soo weerartay. ATMIS oo ka hortagtay weerar uga yimid Al-shabaab. Qaabkii ay uga hortageen sidee bayna ku soo wareen kooxda Al-shabaab. Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa ila soco. Aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ay maanta ciidamada howlgalka ATMIS ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolkaasi. Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ATMIS uga hortagtay weerar gaalmo ah oo ay doonayeen inay ku soo qaadaan xubno ka tirsan kooxda Al-shabaab. Labada dhinac ayaa ku dagaalamay agagaarka magaalada, waxaana ka dhacay dagaal qaraar oo ay guul weyn ka sheegatay ATMIS, kaasi oo sidoo kale khasaare geystay. Afhayeenka ciidamada howlgalka ATMIS LT Kuul Cabdulaahi Xasan Ganaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi, isagoo u shaaciyay inay uga hortageen weeraro abaabulan oo Al-shabaab la damacsaneed ciidamadooda. Kuul Cabdulaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkan ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, isla markaana qayb ka ahaa weerarka gaadmada ah. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay gacanta ku dhigeen 2 qori iyo 130 xabo oo rasaas ah kadib markii ay dagaalka ku jabiyeen xubnaha Al-shabaab. Xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo ka soo horjeeda laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ilaa hadda ka soo baxay kooxda Al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada Midowga Afrika iyo ATMIS. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa kooxdan ay kordhisay weerarada ay ku beegsanayso ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ugu dambeeyay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidanka Uganda ee Buulamareer.
balse ciidamada ATMIS ayaa waxay sheegeen markaasi inay guul ka soo hoyeen dagaalkii abaabulnaa ee soo qaadeen xoogagga Al-shabaab, waxayna sidoo kale sheegeen inay dharbaaxo xooggan ku dhufteen xoogagga Al-shabaab. Ciidamada ATMIS ayaa waxay ballan qaadeen inay sii wadayaan howlgallada ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya ee u baahsanaya cadowga argagixisada, sidoo kalena dhammaan meesha ay ku sugan yihiin ka saarayo intii ay ku sugan yihiin gudaha dalka. ATMIS ayaa aad waxaa markaasi ay dagaal la gashay argagixisada oo ugu horeysa Al-shabaab iyo Daesh iyagoo markaasi weeraro foolka foola iyo dagaalo aad u qaraar ku dhex maro shabeellooyinka. balse ATMIS ayaa haatan waxay sheegtay inay guulo waaweyn ka soo hoysay dagaaladii ugu dambeeyay ee la gashay xoogagga Al-shabaab, iyagoo sheegay in markaasi lasoo weeraray balse ay iska caawin xooggan ka sameeyeen, sidoo kalena ay iska dhiciyeen in argagixisadii soo weerartay.